Yo, what's up guys? أصحابتكم عن الجنة كسودو هذا ومركلة إيه مقال كلي ولكن حسن عادلة ما أنت ومقال كلو عجيبة وحاجران أرضي بدن أو سوماليات كواسو كل بن حبك لوجو دواقي لها إنجليشكا أما قابل وقتك إريادا أما سيقلدن إن يوجو دواقان بإريادا سكستي أهاتوا ما أنت ومقال كاجي نصيبة يا نوية لتي هدي مقال كان عد كليك سوسي سي أما عد كله في ستيبا waxaan doonayaa inaan kula wadaago ama inaan ku baro habkii ugu dhawaaqi lahayd Englishka. Wow, ajiib. Okay, muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa qaabkii aad u baran lahayd hab dhawaaqeedka ereyada. Laga yaabee inaan ereyadan aan ku soo wado ama ereyadan halkan aad ka arki doonto aad si qaldan ugu dhawaaqi jirtay. Laakiin maanta waxaan doonayaa inaan kula wadaago laba erey oo kamid ah ereyadaas. Haddaba haddii aan arko muuqaalkan feedback-giisa iyo like-tiisa iyo share-tiisaba haddii ay kor u kacdo waa ballan inaan dhammaan ba idinka xaqabtiri doono habka loogu dhawaaqo Englishka. Yes. Ku soo dhawaada mar kale ee muuqaalka. Waanuba ereyadan hadda halkan aad ka arki doonto ama halkan aad ka arki doonto inaad si qaldan ugu dhawaaqi jirtay. Laakiin maanta waxaad nasiib u yeelatay inaad kamid noqoto ardayda ka xuroobi doonta inay si qaldan ugu dhawaaqaan ereyadan soo socda. Sidaan wada ogsoonahay ABCda Englishka waxay leedahay shan shaqal kuwaas oo kala ah A, E, I, O, U. sidoo kale inta soo hartayna waa shibanayaal kuwaas oo ah iyagana 22 shibanayaal ah. waa B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. أما Z. كوي لبعتن كاسنة واشي بنيال. أوكي. أريدان هل كان كوجو قرن مركب. حدي أدركتي B, E, A, T. سيدا أقول واقع لهاد. هالمر سك مسيريس أيام كوسينا يا إن شاء الله. قابك أقول واقع لهاد بالإشاك أرجان. و P, E, A, T. waxaan filayaa inaad ku dhawaaqday maanta waxaan baran doonaa laba erey labadaas erey aad ay muhiim u tahay markii aan doonayno inaan ku dhawaaqno Englishka waxayna kaliin labadaas erey waa E iyo I sidaan wada ogsoonahay I xarafkan waxa loogu dhawaaqaa I sida isha camal I kanne waxa la lahaa E marka ereyadaas labadaas xaraf ereyada ay ku jiraan habka loogu dhawaaqo ayaan baran doonaa insha Allah maanta waa P E A T iyo sidoo kale P I T labadaas erey farqiga u dhaxeeyo ayaan baran doonaa insha Allah laga yaabay inaad isku si ugu dhawaaqaysay laga yaabay inaadan isku si ugu dhawaaqinba oo labada ereyba ay ka kala qaldan yihiin waxa laga rabaa inaad dhahdid P you know P eraygan kale asagana waxa laga rabaa inaad ugu dhawaaqdid pit bida iska reeb maxaa ku soo haray I T som ku soo harin I T in English ama subjectiga marka la sheegayo I you we they she he it som lagu dhawaaqin it som dhihin it waxa ka dambeeyo xaraf oo consonants ah kaasoo ah B you know B not P B haddii ay ka dambayso marka maxaa leedahay sidee ugu dhawaaqaysaa waa pit okay aynu sidoo kale intoodna daawano macluumadan beat bit you try beat bit next one heat hit your turn heat hit meet mit your chance now meet mit next one is feet and fit you have a go at that feet fit and the last one very careful with this sheet and shit
waxaan filayaa wax badan ka bogatay haddii muuqaalkan uu feedbackiisa uu bato ama commentidiisa ay bataan sidoo kale intood sharetiisa iyo like-tiisa ay bataan waxaan soo samayn doonaa another part 2 insha Allah waxaan idin rajaynayaa horumar iyo baraare waa macallimiintiyo idin leh sidaayo amaana Allah peace